Bismillahirrahmanirrahiim kusoo dhawaada warka galwareed media qodobadaad ku daawan doontaan saaxiibayaal waxa ugu dooron Al-Shabaab oo bilaabay qorshe halis ah oo ay ku cunaqabateynayaan Muqdisho qeyro oo Muqdisho markii ugu horeysay ka dhoofay xilli habeen ah Somaliland oo ciidamada ka goostay ku tilmaantay wax matarayaal wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga oo soo gudbiyay qorshe amni oo lagu sugayo doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo madaxweyne Farmaajo kulan Muqdisho kula qaatay safiirro ka mid ah kuwa caalamka Hirshabelle oo qorsheynaysa ku dhawaaqista gobollo iyo degmooyin cusub oo ka tirsan maamulka qoys qiyaamaha god dhexdiisa ku sugayay oo la soo helay haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta aan channelkan soo gelino intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada saaxiibayaal ururka Al-Shabaab ayaa bilaabay qorshe halis ah oo eg in Muqdisho ay ka cunaqabateynayaan ganacsiga uga yimaado gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan qudaarta ka soo go'da beeraha gobolkaas Al-Shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgallo kala duwan ka fuliyay gobolka Shabeellada Hoose waxayna inta u dhaxaysa deegaanada number 60 iyo deegaanka Buulanaagay ku gubeen ilaa 4 gaari oo qudaar u soo siday Muqdisho gaadiidka ay gubeen shabaab ayaa dhamaantood ahaa nooca loo yaqaan hoomey sidoo kale Al-Shabaab ayaa inta u dhaxaysa deegaanka lambar 50 iyo Awdhigle waxay ku dileen darawalkii waday gaari qaadsiday iyagoo isla goobta ku gubay gaarigii marxuumka iyo jaadkii saarnaa dhinaca kale dad ku sugan Shabeellada Hoose ayaa inoo xaqiijiyay in gaadiid fara badan oo qudaar u soo siday Muqdisho ay shabaab ku xanibeen inta u dhaxaysa deegaanada ceel wareegow iyo lambar 60 kuwaas oo xalay ku hoyday halkaas Al-Shabaab ayaa horey u baacsan jiray gaadiidka Muqdisho soo galiya dhuxusha iyagoo bilihii la soo dhaafay gobolada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe ku gubay ku dhawaad 20 gaari oo ah kuwa loo yaqaan inatareyga kuwaas oo dhuxul u soo siday Muqdisho 48 saac la soo dhaafay Al-Shabaab inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Shabeellada Hoose waxay ka bilaabeen baacsi ay ku hayaan gaadiidka qudaarta ka soo daabula dhulka beeraleyda ah ee soo galiya magaalada caasimadda ay Muqdisho waxaa xusid mudan in wadooyinka Al-Shabaab ka fuliyeen howlgalladaasi ay yihiin kuwa aan horey loo isticmaali jirin balse hadda ay gaadiidleyda ku qasbanaadeen kadib markii jidadkii hore uu roobkii biyo dhigay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xalay ka dhoofay garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda dalka Mareykanka Ra'iisul Wasaaraha ayaa transit ku sii ahaan doona magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya halka uu sii gudbi doono Mareykanka Xasan Cali Kheyre ayaa lagu wadaa marka uu gaaro magaalada Mareykanka gaar ahaan Washington inuu halkaasi uga qayb galo shirka sanadlaha ee bangiga adduunka World Bank iyo hay'adda lacagta adduunka ee IMF Somaliland ayaa si cajiib ah u qeexday ciidamadii dhawaan ka goostay ee aaday dhanka Puntland xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay ciidamo ka tirsanaa oo ku howlgali jiray deegaanada gobolka Sanaag oo dhawaan u goostay dhinaca Puntland Cabdirasaaq Cabdi Saalax wasiirka cadaaladda Somaliland ayaa sheegay in ciidamadaasi aysan markii hore wax faa'iido ah u lahayn maamulkooda isla markaana ay ahaayeen wax matarayaal ku sugnaa deegaankaasi wasiirka ayaa waxa kale oo si adag u beeniyay inuu jiro calan ay Somaliland leedahay oo laga dejiyay deegaanka ka tirsan Somaliland isagoo ku tilmaamay kuwa la soo bandhigay inay yihiin kuwa been abuur ah waxa kale oo wasiirku sheegay in maamulka Puntland aysan marnaba ku biirin ciidamada awoodda iyo tayada leh ee Somaliland balse ku biiraan ciidamo aan waxtar lahayn hadalka wasiirka wuxuu ku soo aadayaa iyadoo dhowr cisho kadib markii uu maamulka Puntland soo bandhigay ciidamo ka tirsan Somaliland u goostay dhankooda iyadoona dhowr jeer oo hore sidaas oo kale u soo bandhigeen ciidamo badan oo ka soo goostay Somaliland maamulka Puntland baarlamaanka Soomaaliya ayaa u yeeray wasiirada gaashaandhigga iyo amniga guddiga ku meel gaarka ah soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka ayaa kulan kula yeeshay xarunta guddoonka iyo gudiyada fila Hargeysa wasiirada amniga iyo gaashaandhigga Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ajidaha golaha guddiga la yeeshay wasiirada ayaa ahaa doorka ay ka qaadan karaan sugidda doorashada ka dhici doonta dalka sanadka 2021
wasiirada amniga iyo gaashaandhigga Maxamed Abuukar Slow Ducaale iyo Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa guddiga uga warbixiyay qaabka ay u sugi karaan ammaanka goobaha ay doorashada dalka ka dhici doonta 2021 marka la gaaro. Gudoomiyaha guddiga ku meel gaarka ah soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka Xildhibaan Cabdulaahi Abuukar Xaaji Injineer Carab ayaa kaga mahad celiyay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga sida ay u soo diyaar garoobeen sugidda amniga goobaha ay ka dhici doonto doorashada dalka ee sanadka 2021 lagu wado inay dhacdo. Guddiga ayaa waday kulamo uu la qaadanayo cid walba oo qustaysa sharciga doorashooyinka qaranka tan iyo markii la magacaabay. Kulanka uu guddigu la yeeshay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga ayaa ugu dambeyntii ku soo gabagaboobay jawi wanaagsan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjirayaasha cusub ee dalalka Talyaaniga iyo Sweden u fadhi doona Soomaaliya. Danjiraha boqortooyada Sweden Stefan iyo danjiraha cusub ee Talyaaniga Alberto Vecchio ayaa madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaamo ay uga wadeen hogaamiyaasha dalalka ay matalayeen ee Talyaaniga iyo Sweden. Madaxweyne Farmaajo danjirayaashan oo kulan ku qaatay madaxtooyada Soomaaliya waxay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka u dhexeeya dalalka ay matalayaan iyo Soomaaliya iyo sidii dowladahooda ay u caawin lahaayeen hay'adaha kala duwan ee Soomaaliya. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa warbaahinta uga warbixiyay safiirada uu madaxweynaha la kulmay dalalka ka socdaan. Dalalka Talyaaniga iyo Sweden ayaa kamid ah dalalka inta badan dowladda Soomaaliya ka caawiya dhanka militariga iyo talaakuleynta hay'adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee maamulkaasi. Gudoomiyaha ayaa ugu horreyn sheegay in Hirshabelle ay wado qorshe ay ugu dhawaaqayso gobollo iyo degmooyin cusub oo hoos taga maamulkaasi. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ay ku yaalaan deegaano u qalma degmooyin sida uu hadalku u dhigay. Sheekh Cusmaan Barre Maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa dhinaca kale ka hadlay howlaha horyaalla baarlamaanka iyo sidii caqabadaha. Gudoomiye Barre ayaa sheegay in muddo goluhu wajahayay xaalad amni darro iyo mushaar la'aan xildhibaanada haysatay taasoo curyaamisay shaqadii baarlamaanka. Hirshabelle waxaa lagu sheegaa inay tahay maamulka ugu liita dowlad goboleedyada dalka ka jira waxaana ugu sii darsamay amni darro iyo dhaqaale la'aan. Qoys qiyaamaha god dhexdiisa ku sugayay oo la soo helay. Booliska dalka Netherland ayaa soo helay qoys 9 sano ku jiray dhulka hoose ee dhismo ku yaala gobolka Trith kuwaasoo la sheegay inay sugayeen in qiyaamaha uu ku dhaco. Wararka ayaa sheegay in laamaha ammaanka ay arrintan ka war heleen kadib markii mid ka mid ah dadkaas uu bannaanka u soo baxay laguna arkay baar lagu cawiyo. Ninkan oo da'diisu tahay 58 sano jir qoyskiisana ay ka mid ahaayeen dad da'doodu u dhaxayso 18 sano ilaa 25 sano ayaa ku noolaa guri hoos u dhisan oo ku dhex yaala beer ku taala gobolka Trith. Curadka qoyska ayaa la sheegay inuu bannaanka khamri u soo doontay. Shaqaalihii baarka iyo telefishinka RTV ayuu u sheegay inuu ninkan uu doonayay in dadka ay caawiyaan. Ninkan oo markii hore la xiray ayaa loo mooday inuu yahay aabaha dhalay carruurta laga soo helay godka. Warbaahinta dalkaas ayaa ku soo warantay in qoyskan ay halkaas ugu jireen in muddo ah iyagoo sugayay qiyaamaha. Warar aan la xaqiijin ayaa sheegay in dadka la helay uu ka mid yahay aabaha carruurtaas. Saaxiibayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Galwareed Media. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channel.